Magacayga waa Olga. Kadib markii aan islaamay, magacayga waxaa lii bixiyay Faadima. Waxaan idinka warramayaa qoyskayga iyo dadkii aan la noolaa. Markay da'daydu ahayd 3 sano, hooyaday waxa ay guursatay nin Muslim ah. Hooyadayna way islaamtay markii ay guursatay. Ayeeyday iyo awowgay waxay ka soo horjeedeen in ay hooyaday guursato nin Muslim ah. Hooyaday iyo waalidkeed waxaa ka dhex taagnaa dhibaato aad u weyn. Ayeeyday ayaan la noolaa muddo yar. Markii aan yaraa, hooyaday ayaa waxaan wax ka weydiin jiray arrimaha Islaamka iyo ayeeyday mowqifka ay ka aaminsan tahay Islaamka. Ayeeyday waxa ay ahayd mid mar walba ku cayso Islaamka hooyaday horteeda. Waxa ay dadaal weyn u gashay sidii ay ugu fogeyn lahayd diinta Islaamka. Hooyaday waxa ay rabtay inaan noqdo Muslim, mar walbana waxa ay iga sheekeyn jirtay wanaagga uu leeyahay Islaamka. Hooyaday mar walba waxa ay igu yeeri jirtay inaan u raaco masaajidka Ramadaanka. Laakiin aniga waan diidi jiray maxaa yeelay waxa aan aaminsanaa inay arrimo xunxun igu yeerayso. Waxaan ceebkaas ugu beerana waxa ay ahayd ayeeyday. Ayeeyday waxa ay lid ku ahayd Islaamka, waxa ayna igu dhihi jireen inaad guursato nin Islaam ah waa waxa ugu xun uguna fool xun. Ayeeyday waxa ay igu dhihi jirtay Islaamku waa hay'ad argagixiso, lagamana helo arrin fiican ilaa dulmi mooyee. Mar walbana waxa ay igu qancin jireen inay diinta Islaamku tahay diin xun. Hooyaday mar walba Ramadaanka waxa ay igu yeeri jirtay guriga si aan ula afuro. Mar walbana waxa aan ku dhihi jiray ma awoodo. Waxaas igu qasbiyana waxa ay ahaayeen ayeeyday iyo awowgay, ayagoo ii sheegi jiray inuu afurku yahay wax xun oo aan caado noo ahayn. Ayeeyday mar walba waxa ay ii wadi jirtay kaniisada si aan ula soo caabudo waxa ay caabudayso. Hooyaday markii arrinka maqashay waxba ma aysan dhihin. Laakiinse ayeeyday ma aysan awoodin inay iga celiso akhrinta kitaabada Islaamka. Aad baan ugu xumahay. Waxaan ku soo barbaaray biyo noocaas oo kala ah. Waxa aan ka walwali jiray dhibaatada ka taagan qoyskayga maxaa yeelay aniga dhib ayay igu ahayd. Nafsadeyda ayaan u sheegay inaan ahay mid murugaysan, laga maarmaana ay tahay inaan qaato go'aankii kama dambays ah. Waxaan qaatay go'aankii ugu dhawaa maskaxdeyda. Waxa aan akhriyay kutubta Islaamka iyo kutubta Nasraaniyada, waana isbarbar dhigay. Waxa aan bartay labada diimood, waxaana iga rumowday diinta xaqiiqada ah. Waxa aan islaamay da'daydu markii ay ahayd 12 jir. Intaas ka hor waxa aan akhriyay dhowr kutub oo Islaam ah. Waxa aan xaqiiqsaday diinta Islaamku inay tahay diinta saxiixa ah. Waxa aan xaqiiqsaday inaan ahay Muslim dhab ah oo dhameystiran. Waxa aan go'aansaday inaan u sheegin qofna, xataa hooyaday. 2 isbuuc kadib, hooyaday ayaa u sheegay inaan doonayo inaan noqdo Islaam. Hooyaday waa ay faraxday, waa ayna qaadan weysay. Waxa ayna tiri alxamdulillaah. Waxa ayna hooyaday ii sheegtay in ay u duceysay habeenkii Laylatul Qadriga inaan islaamo. Waxa ayna ii sheegtay inay iigu duceysay inaan islaamo markii da'daydu tahay 20 sano jir. Islaamkayga waxaa sababay kutubada faraha badan oo akhriyay iyo saameyntii ay hooyaday igu reebtay. Ninka Muslimka ah oo hooyaday guursaday waxa uu igu yeeshay saameyn aad u weyn. Marka aan arkay dabeecadda wanaagsan uu hooyaday kula dhaqmayo anigoo Islaam ahayn baan la dhacay. Isla markiiba waxaan dareemay farxad weligii aan helin, weligeena aan ku riyoonin. Waxa aan noqday Islaam.